بسم الله الرحمن الرحيم ujeedada shirkan jaraa'id maanta aan u qabanayno waxay tahay sida la socotaan walaalayaal dalkii waxaa ka dhacay fatahaadyo oo dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ku waxyeeloobay dad badan ayaa naftooda ku waayay qaar ayaa ku dhaawacmay qaar ayaa xilligan aan hadlayno biyaha ku dhex jiro habeenkii hoyaad u ah biyaha dhexdooda marka anagoo ka jawaabayna baaqi madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre oo ahaa in dadka Soomaaliyeed ay u gurmadaan walaalahooda ruux waliba Soomaaliyeed meel kasta uu joogo waxa jeebkiisa ku jira inuu wax ka bixiyo oo uu ku caawiyo walaalihiisa Soomaaliyeed marka anagu maadaama aan nahay reer South Africa halkaan South Africa aan joogno waxaan ugu baaqayaa dhammaan Soomaalida degan Southern Africa iyo South Africa intaba in ruux waliba waxa uu Ilaahay siiyay inuu wax ka baxsho caruur Soomaaliyeed ayaa dibadda hooy u ah hooyooyin Soomaaliyeed ayaa biyaha dhex jiifa odayaal Soomaaliyeed ayaa dhibaataysan marka walaalayaal xilliga kaliya qofka bini'aadanka walaalkii u baahan yahay weeyaan Ilaahayna wuxuu leeyahay isu naxariistaan idin naxariisto waana xilliga ugu muhiimsan ee uu qofka walaalkii u baahan yahay marka ruux waliba Soomaaliyeed haddii noqon lahayd culimo ganacsatada ku dhaqan Southern Africa iyo South Africa intaba dad bulshada qaybaheeda kala duwan ruux waliba wax haysta walaal wax ka bixi wixii Ilaahay ku siiyay boqolkan waa $5 ilaa $7 intuu dhaxaysa qoys Soomaaliyeed ayay samata bixinaysaa maalin haynaysaa marka walaalayaal waxaan ku baaqayaa culimada inay u istaagaan masaajidada laga hadlo guddi la sameeyo oo arrintan horkaca sida ugu dhaqsiyaha badan waa dareemaysaan arrintan musiibada waxay bilaabtay toddobaadkii labaad ayaa la marayaa meel lagu kalo oo waqti badan la sugi kara ma ahan dad Soomaaliyeed ayaa saacadaas aan wada hadlayna dhibaataysan marka waxaan ku baaqayaa dhammaan culimaa u diinka ku dhaqan Southern Africa iyo South Africa guud ahaan iyo ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan halkan iyo bulshada qaybaheeda kala duwan in sida ugu dhaqsiyaha badan in loo istaago oo la guro lacag la guro anagoo ka safaarad ahaan sidoo madaxweynaha sheegay mushaaraadkiina ayaan wax ka jaraynaa aniga tiimka safaaradda mushaaraadkiina wax ka jarno oo anaguna aan ku kordhino ama aan ku darno lacagahaas la guraayo marka waxaan ku baaqayaa in guddi culimada ay horkacayso la sameeyo dadkan sidaas hawshii ku bilaabato